قطوف البخاري. قطوف البخاري كتاب يحتوي 200 حديث منتقات من صحيح البخاري. تصنيف وأداء حسين العرموي. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. فهمت تكاليف الحياة ومن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال هذا دمانتين waxaanu ku gudi jirnay kitaabkeena Qutuf al-Bukhari, gaar ahaan waxaanu ku jirnay baab al-mazalim, baabkii waxyaalaha ay dadku kala dulmiyaan ayaanu ku jirnay. waxaanu soo gaarnay markaa al-hadith al-71 xadiiska 17aad عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال. بخاري waxa uu ka wariyay أبي موسى الأشعري الله raali ka ahaadee inuu yiri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي يري إن الله أله ليملي وأسيت ديريا للظالم إنك الظالم كأه حتى إذا أخذه إلا يمرك وقبته لم يفلته مسيدايو. يملي وحلقة وضع أي يمهل يعني وأكاديا ويؤخر وأدبدقا ويطيل له وأديريا المدة مدة وأديريا. أبي موسى الأشعري حديث كورينيا ترجمتي صح نقص مرتين. حديث كلا بعض لم يفلته سيدا وكلا غريب كحديث كمرك اللي هي إيه لم يخلصه ولم يتركه، يعني مسي دايو وكمتجو حتى يستوفي عقابه، يعني لا عقابتي سوك أوف صنيو هو عقاباوي مركا وقبت رب تبارك وتعالى. معناها جودي حديثك الضونك وما هبونا إنه كوكة تسومو إلهي تبارك وتعالى دلقات كيسا وحلقة يابا أمني جاوز كجسوين هان العقابي isagoo macsida ku sugan oo naftiisina dulminaya dadkii kalena dulminaya inay ka dhigan tahay in loo seeta dheeraynayo oo loo kaadinayo hase ahaatee mar la qaban doono. waxa xadiiskana ku sugan yani nabigu ka digay calayhi salaatu wasalaam in qofku ku madax adaygo dulmiga. waxaan rasuulkuna baraya calayhi salaatu wasalaam qofkan zaalimka ah ee cuqubadan lagu soo degdegaynin inay ka dhigan tahay in loo kaadinayo oo loo seeta dheeraynayo si uu dunuubta u sii siyaadsado marka sa uu rabbi qabto aanu sii deynaynin tabaaraka taala. fawaa'ida xadiiska waxa ku sugan wiciid daran oo loo yaboohayo qofka zaalimka ah isla markaasina yani waxa way ku kadsoomaya u kaadinta uu rabbi u kaadinayo kana aamin noqonaya makriga ilaahay tabaaraka taala. waxa kale xadiiska ku sugan inay waajib tahay xuquuqda dadka laga dulmiyo in loo celiyo oo lagu sii madaxadeeyeen in dulmiga la sii wado. waxa kale xadiiska ku sugan dadka zaalimiinta ee aanu rabbi tabaaraka wa taala horay ugu qabanaynin dambiga inuu xikmad weyn ka leeyahay oo si ay cadaabka u siyaadsadaan sidii uu rabbi tabaaraka wa taala kitaabkiisa ku yiri inma numli lahum liyazdadu ithma. waxaynu ugu kaadinaynaa oo ugu seeta dheeraynaynaa si ay dunuub kororsadaan baa rabbi tabaaraka wa taala. marka waa in qofku baraarugo oo inuu yani dagan yahay uu istareemo oo dulmiga ka soo laabto. waxa kale xadiiska ku sugan laab qaboojin loo laab qaboojinayo qofkii la dulmiyay oo ilaahay tabaaraka wa taala qofkaas waa u hiilin doonaa oo zaalimka waa qaban doonaa walow bacda xiin muddo kadibna ha noqotee. baabur rahmah, baabka naxariista ayaynu halkan ka guda galaynaa. waa naxariista rabbi waa doomadiisa u naxariisto iyo taadoomuhu iyagu dhexdooda ay isku naxariistaan. الحديث 72 حديثك لبي تضباطناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. بخاري وحو كوري أبي هريرة الله رالك هذا أبي هريرة وكورنا يا النبي اللي يدي عليه الصلاة والسلام إن الله أله لما قضى الخلق أبورك خلق مركي ونما يستري كتب عنده وحو ققري أكتيسة فوق عرشه يعني دشيسة إن رحمتي رحمة ضيدو سبقت وكذا يريسي غضبي عرضي داية كبدس. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أي حديث كورينية ترجمة سوحنا نقص مرتين حديث كصدحات معناها جودة حديثك إلهي تبارك وتعالى
dambi dhaafkiisa iyo naxariistiisuba aad iyo aad ayay u badan yihiin. xadiidkana waxaa ku sugan in ilaahay tabaaraka wa tacaala markii uu khalqiga dhameeyay abuurkiisa waxa uu kitaab yani agtiisa ahaaday ku qoray. kitaabkaas waa lawxul maxfuudka waa la yiri, waa kitaab kale oo gooniyana waa la yiri. waxa uu rabbi ku qoray raxmadaydu waxay ka badisay caradayda ayaa rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala. sidaas xadiidku uu sheegay ilaahay rifqigiisa iyo turista uu adoomada u turayo, nicmeynta uu nicmeynayo ayaa ka fara badan qabashada uu qabanayo ee uu ka argoosanayo. ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmadiisu qofka bani aadamka way caam yeelaysaa marka uu janiinka yahay uurka hooyadii ku jiro, marka uu radiica yahay ee yani naaska uu nuugayo, markii naaska laga guriyay, markii uu soo barbaarayay ilaa iyo uu ka weynaanayay. waqti walba ilaahay naxariistiisu waa ay ku socotaa. waxa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariistiisa si caamka ah kamid ah in qofkii kaafirka ilaahay ka kufriyay tabaaraka wa tacaala oo aanan xaq mudanin in la ciqaabo mooyaane haddana ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ciqaabkii uu ka dib dhigayo, bal uu nicmaynayo oo caafimaadkii, xoolihii, yani risqii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siinayo. qaarkoodna uu kaba toobad aqbalayo islaamkii ay soo gelayaan. sidaas aawadeed ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariistiisu ay aad iyo aad u gudub ballaaran tahay oo aan la soo koobi karaynin. fawaa'idda xadiiska ku sugan ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmadiisu siday waasica u tahay iyo fadliga uu adoomadiisa ku galladaysanaya siday u weyn tahay ayaa xadiiska ku sugan. waxaa kaloo xadiiska ku sugan sifada raxmadda in ilaahay loo sugayo tabaaraka wa tacaala. sidoo kale sifada ghadabka iyo caradana in ilaahay loo sugayo. waa laba sifo oo ilaahay uu ku sifaysan yahay, marnaba aan shabihin ta makhluuqaadka. oo raxmadda ilaahay waa mid aad iyo aad u waasica oo qof yani ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmaddaasi kula mid noqon karaa ma jiro. laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samiicu al-basiir. sidoo kale ghadabka iyo caradana waa mid ilaahay u cunanta oo cid kula midihi ayna jirin weeye. الحديث الثالث والسبعون حديث صدحية تضباطنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بخاري وحو كوري أبو هريرة الله رالك هذا إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري لن ينجي بدباد مايو أحدا منكم قف إذن كمده عمله عمل كيس بدباد مايو قالوا مركز واحدهن صحابتي ولا أنت يا رسول الله أدقنا عمل كاكو بدباد مايو مية قال مركز النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنا عمل كيجي بدبادين مايو إلا أن يتغمدني الله إنه إلهي مقرسي موياني برحمة رحمة مقرسي يقليو. يتغمدني أي يغمرني يعني يقوسي ويان ويشملني ويعني يقو عام يلو وذقارسيو ويسترني ويقو قريان حريستيسا تاسم بان يعني كبد باديو. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحديث كورينيا ترجمة دي سوحي نقصة مرتين حديث كصدحات معناها جودي حديثك شريعة إسلامكم وشريعة يعني وحوية أحكام تدي كل سنتهاي تخفيف يسر إن لفظ يدي الضومضة وأضون كلمة سارين وحنو كرينين سيدا ودد أي شريعة وحي كل سنتهاي بين الخوف والرجاء إن قفكوا إلهي تبارك وتعالى وكعبدو رجين ونحريستي سرجينيو سيدا كلنا عبسي وكعبسني عذاب كيسة. حديث كان وحنا النبي نقول رمي عليه الصلاة والسلام قفك عمل كيسة وناكسني انتو الضوني هجر سيسنادئ وحقول نجمع إلهي الجنة يسوق إنكريين وهي لكن واحد جنة الله هنا يا عيتهاي إلهي نحرستي تبارك وتعالى وحتى عمل كون وناكسني وقفك قبريو صمأهون وحو ربي مركو ربه وافجيه تبارك وتعالى. سيدا ولد بان النبي عليه الصلاة والسلام حديث كآخر كيسة وحنا نقول رجيي يعني قفك عمل كيسة mar haddii aanu ahayn mid janno u geyn karaya inuu ilaahay naxariistiisa intuu qoodareeyo camalkana uu dhexdhexaysto u joogteeyo. oo xadiiska aakhirkiisa waxa nabigu yiri fasaddidu wa qaribu yani dadaweeya oo dhexdhexaysto camalada yani inta sawaabka ee xaq waafaqsan yani la yimaada oo inaad ka badbadisaan iyo inaad ka gaabisaan midna toona sameeynina. fawaa'idda xadiiska ku sugan ilaahay raxmadiisa oo adoomadiisa u naxariisanaya sidii u weyntahay xadiiska ku sugan. waxa kale xadiiska ku sugan qofku inaanu ku kadsoomin camalkiisa oo naftiisu ayna cajabinin. waxa kale xadiiska ku sugan in la dhexdhexaysto cibaadada si aanu qofku uga daalin oo camalkii inuu ka tago ayna keensanin. waxa kale xadiiska ku sugan sida xadiista kale oo nabigu ku cadeeyay calayhi salaatu wasalaam acmaasha inay ugu khayr badan tahay inta la joogteeyo haba yaraatee. الحديث الرابع والسبعون حديث كأفرية تضباطنات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. جرير بن عبد الله البجلي وحي بخاري كوري الله رالك هذا قال وحول الجرير
قال رسول الله رسولك الله يري عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله ألا أمن حريسته من أحدك لا يرحم الناس يسوون عن ضدك ونحريسنين. حديثك وحورنا جرير بن عبد الله مقعيس وحلا هذا جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي إمام الذهبي مركو الشيخ وحوري والأمير النبيل الجميل أبو عمر وقيل أبو عبد الله البجلي وحوري وأميركي وانك عقلك بدنا وانك قرح بدنا أبو عمر يعني كن يديسو هيدا أبو عبد الله ولا يري البجلي يعني قبيلة بجيلة لا يراهو يلا نسبينيها أعيانتي الصحابة يرقي يعني وعد عضابو كمدها نبي عليه الصلاة والسلام أيا وحو بلن كلا قلي قف كاستبه أو يعني مسلم إنه أخير ميرو أو سيدا يوجرتو يعني وحوي خيركو وكلا طليو إلا الله الشيغو إنه كجاري أرنكاسي جرير إن قفك وبداعة كئيب سنيو هاديو يعني هو صير لقى قيمة هيجا ويراهدو ألابتن مجوكتو قيمة هاسي قيمة كقالسان سيسو يعني وكوراهدو لنا هذا قرح بدن بوها جرير بن عبد الله البجلي إلا عمر رضي الله تعالى عنه ورنجري جرير يوسف هذه الأمة جرير ويوسف كأمة بورنجري قبيل كيس بجيلة لا يراهدو السيد كودا أيها إساقا إيا قبيل كيس وحي إسلامين يعني بشي رمضان سنة كتبناد هجرة وقت الدنباء يجري الإسلامي النبي عليه الصلاة والسلام أيا إساقا يقول ريركي سأل لدري الصنم كذي الخلاص الله يرهدين يسود ميان أو يسود بربريان يا نبي قدر عليه الصلاة والسلام أحاديث دورة أيو نبي كسوري عليه الصلاة والسلام بخاري مسلم سديد حديث أي سكوا فقينا يوصل صاري بخاري نوح لقون النقضي لبا حديث مسلمنا لحديث بوصل صاروا لقونيه جرير وحلا هذا واحد انتي سنة 51 سنة كي كوبيا كونتون هجري واحد علماء قاركود واحد هذين سنة 54 سنة كأفريقيا كونتونات هجري يا ودنتي معناها جود حديثك نبي عليه الصلاة والسلام وحنا جوا رميها قفك يعني ضدك قلنا حريسنا يا إنه حق مدني هي إلهينا إنه نحرسته تبارك وتعالى قفك أنا سجود ضدك قلنا حريسننا إلهينا حريستيسه إنه كقضيو ضدك أنا هلك محل ولا جيدا ضدك مؤمنين تاه أما ضدك أهل الذمة إن نقول إحنا يعني نقد حين يعني وحوي دجالكوا أنو نقد حين لكن قال هذا حربيين تدجالكوا نقد حين كوا يقولوا من حريسنا يه ولا لا دجال ما يه وأنا لا ينهيا سيدا ودي برب مركو أماني النبي عليه الصلاة والسلام يا الصحابة وحوا يلي يعني وأشداء على الكفار رحماء بينهم كفار توكو أدرجيهين يجونا دحدوده واسكن حريستان لكن عصر كان نجونا واحد مدين حاجة كلا له الرجيو تدكي مؤمنين تهانا دحدودي واسكو أدرجيهين قال كينا ولا دبع سنيهي والله المستعان فوائد حديثك بسوغان حديثك waxa ku sugan boorin leen nagu boorinayo inuu qofku ku sifoobo raxmadda iyo naxariista iyo dabacsanaanta iyo turista xusida dadka halkan lagu xusay leeyahay la yarhamullah man la yarhamun nas yani waa ihtimaamka ay dadku leeyihiin makhluuqaadkii oo dhan in loo naxariista way iska soo gudagalaysaa waxa kale oo xadiiska ku sugan naxariista ay dadku dhexdooda isku naxariisanayaan inay sabab u tahay in iyagana rabbi uu naxariisto tabaaraka taala waxa kale oo xadiiska ku sugan sifatu rahma ilaahay inuu naxariis ku sifaysan yahay يعني نحريس إسقى وعننتا أو يعني وحوي يعد كل مده أين الجرين أيها ربي وكسف يسيه تبارك وتعالى باب الأيمان والنذور وحو بابي هي باب كدارها ينذرك الحديث 75 حديث كشنية ضباطنات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بخاري وحو كوري عبد الله بن عمر سيابي الله رالك هذا قال وحو يري عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري ألا إن الله أله ينهاكم وحود كالريبية أن تحلفوا إن تكون دارتان بآبائكم آبياشين فمن كان حالفا قفك هذا مدارنا إياه فليحلف بالله الله كل دارته أو ليصمت أما هسك أمس عبد الله بن عمر أي حديث كورنية ترجمتي سحنا قصة مرتين حديث كالسجال يطبناد معناها جود حديثك عربتي جاهلية وحي أهايين كوا آبياش تكون دارته وينين أي وينين ين أودي isagoo rabbi tabaaraka wa taala in tusinaya weynayntaasi inuu xaq mutawn isagu ayaa sharciga islaamku waxa uu reebay inuu dadku ku dhaartaan cid aan Allah ahayn tabaaraka wa taala xadiiskana nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku diiday in dadku ay aabayaashood ku dhaartaan waayo dhaarta qofka lagu dhaaranaya waa weynayn la weynaynayo weynayntaasina ilaahay unba xaq mudan tabaaraka wa taala marka sharcigeenu wuxuu reebay in lagu dhaarto ilaahay cid aan ahayn tabaaraka wa taala waana shirkun asghar يعني waa shirki yar
ودينته لوغما بخو marka culimadu shirki yar ku leeyihiina waa بالنسبة للشرك الأكبر يعني shirkiga weyn marka loo eego buu yar yahay laakiin dambi aan diinta looga bixin ka weyn weey oo dambi kasto la sheego waa ka weynaanaya dambiga shirkiga lagu sheego oo hadda yani khamrigi iyo zinadii iyo inaad ku dhaarto alle ciidan ahayn ayaa ka sii dambi weyn weey sida wadeed Abdullah ibn Mas'ud wuxuu oran jiray la an ahlifa billahi kadhiba ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrihi wa ana sadiq wuxuu oran jiray ilaahay oo been ugu dhaarta ii dhaanta inaan cid kale ku dhaarto aniga oo run sheegay yani say u culus tahay arintani ay ku tusinaya marka waa kabiira min kabaa'ir dhunubta alle laga galo ko u weyn bay kamid tahay dadkeenana aad bay u dhex faafsan tahay Soomaalida aho yani igu hooyadii iyo igu aabahay iyo ayu qofkii oranaya fawaayida xadiiska ku sugan ilaahay tabaaraka wa tacaala ciidan ahayn lagu dhaartaa inay xaraan tahay baa xadiiska ku sugan bal ay tahay dhunubta waa weyn oo ay kamid tahay yani caadaadkii jaahiliyada ee islaamku uu meesha ka saaray waxa kale xadiiska ku sugan qofkii dhaaranaya inuu rabbi ku dhaarto tabaaraka wa tacaala hadii aanu ilaahay ku dhaaranayna uu iska aamuso waxa kale xadiiska ku sugan weynaynta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu xaq mutay يعني مثل مذا إن أنا عدت كلا لوينين وإلهي تبارك وتعالى لو قوني له هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على